Barashada luqad cusub waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaado noloshan. Marka aad luqad cusub barato, waxaad yeelanaysaa shakhsiyad cusub oo marka aad af Soomaali uun taqaano, waxaad leedahay kaliya shakhsiyadda Soomaaliga oo intaas uun Soomaaliga uun ku kooban, shakhsiyaddiisa iyo xayndaabkiisa. Sheekh haddii aad dhegaysanayso, haddii aad suugaan hadal hayso, iyo haddii aad buug akhriyaysaba, intaba kaliya aadan dhaafi karin Soomaalinimada. Laakiin marka aad barato luqad kale, tusaale ahaan luqadda Carabiga, waxaad yeelanaysaa shakhsiyad kale oo Carbeed, gaadhsiisana dhammaan xuduudka Carab gaadho oo dhan, oo muxaadarooyin, buugaag, suugaan, iyo hadal, iyo dhammaan wax kasta oo luqadi leedahay, intaba af Carabi ayaad ku daalacanaysaa. Waxaad yeelanaysaa shakhsi wacyi iyo ogaal la mid ah kan qofka Carabka oo kale, adiga oo kaagii Soomaalinimana haysta. Haddana, goortii aad barato Ingiriishka, waxaad yeelanaysaa shakhsiyad saddexaad oo la mid ah kuwaas hore. Waxaad yeelanaysaa 3 shakhsiyadood. Bal miyaysan cajiib ahayn inaad yeelato 3 shakhsiyadood oo ku dhex nool keliya hal qof? Sidaas daraaddeed, waxaa lama huraan ah inaad barato luqad cusub, si marka ay shakhsiyadaadan Soomaaligu kugu soo ururto, aad u baxsato oo aad ugu barato ama aad ugu akhriso xirfadahaas mustaqbalka wacan leh ee aan badigooda lagu helin luqadeenna. Haddaba marka laga hadlayo barashada luqad cusub, waxaa la tilmaamaa 4 tiir oo muhiim ah oo kala ah dhegaysi, ku hadal, qoraal iyo akhris. 4tani waa 4ta tiir ee lagu barto luqad cusub, oo badanaa qofka waxaa iskaga qalqala qaabka loo kala horraysiinayo. Sidoo kale cur u bood oo dhulku cur ku dhaco, xataa haddii la eedaamo, cidi ku bari mayso luqad, ee waa la isbaraa, ama bareefad u gal, ama jaamacad, ama taleefankaaga isku baro, cidi ku bari mayso luqad intaad isbarto. Tallaabooyinka ugu mudan ee la marana waxa aynu iskula wadaagaynaa muuqaalkeennan. Haddii aad baranayso luqadda Ingiriishka, ugu horrayn soo gado dictionary-ga Ingiriishka iyo Soomaaliga sida looga baadho ereyadana weydii qof yaqaana. Intaas marka aad barato, tallaabada ugu horraysa ee aad qaadayso barashada luqadda Ingiriishka waa sahal. Marka hore baro alifbeetada iyo qaabka loogu dhawaaqayo. Waa basiid oo saacado ayaad ku baranaysaa. Waa muhiim, haddii aad ka boodana meel kasta oo egas kaaga soo baxdona, xe ayaad u akhriyay, oo qofka maagas la dhaho waxaad moodaysaa meex. Tallaabada labaad eed u qaadayso barashada luqadda Ingiriishka waa inaad ka barato oo aad xifdido xaddiga erayo vocabulary ah oo aad awooddo inaad xafiddo, si ay weliba kuugu fududaatana maalinba wax gaara vocabulary-giisa baro. Maalin baro dadka qaraabada ah, maalin baro qaybaha jidhka, maalin baro cuntooyinka, maalin baro fasalkaada, maalin guriga, kadibna saas ku wad oo ugu yaraan maalintii xafid ku dhowaad 10 erey oo xafid macnahooda, Soomaaliga iyo dhawaqooda intaba. Adiga oo isbarbar wada labadaas tallaabo ee qorista iyo akhriskaba, oo qoristu waxa uu kugu saacidayaa inaad si fudud ku soo xasuusato maskaxdaadu wixii ay qortay, halka akhriskuna kaa saacidayo inaad si wacan u sii fahanto waxaanaad baratay. Kadib marka aad isdhahdo in kugu filan waad ka taqaanaa kelmadaha, bilow markaa inaad barato weerar dhaadheer ama wada sheekaysi iyo conversation samee. Goortii aad samaynayso wada sheekaysiyadaas, ha isku hawlin inaad kala fahanto am, is iyo ar goorta la kala adeegsado, oo lama gaadhin xilligoodii, maxaa yeelay waxay kugu furayaan khalkhal. Isku day inaad akhriso sheekooyinka gaaggaaban, erayada kugu cusub ee kaaga soo baxana gaarkooda u xafid. Kolka aad intaas barato, isku day inaad sii barato erayada muhiimka ah ee afka, sida eray su'aaleedyada sida what, where iyo wixii la mida. Kadibna magacyada fadlan maalmaha, kuwa bilaha, magacyaalada sida she iyo it, iyo dhammaan xilliyada la kala adeegsado am, is iyo ar. Sidoo kalena aad fahanto ilaha muhiimka ah sida lahaanshaha. U gudub goortaasi dhegaysiga. Waxaa jira 2 qaab oo dhegaysi ah. Mid waa filimada, oo marka aad daawanayso filim subtitle-kiisu yahay English, waxaad isla fahmaysaa dhawaqa erayga iyo qoraalkiisa. Midda kale ee ka sii saamaynta badanina waa heesaha, oo marka aad dhegaysanaysid erayada abwaanku ku heesayo, aad qabanaysid, way ka xasuus badan tahay markaad akhriyaysid, waxaana sababaya laxanka ama luqadda lagu akhriyayo. Tusaale haddii aan ku idhaahdo, saqda dhexe habeenkii,
sahankeed aroortii surinkay maraysaba waan ka daba saluuga iyo ma isku midba haddii aan ku dhaho saqdaa dhexe habeenkii sahankeed aroortii surinkay maraysaba waan ka daba saluuga. luuqaddaas ama laxankaasi waxay ku fududaynayaan xifdinta erayadaas. intaas kolka aad muddo soo dhex tabaalato u gudub hadalka, markaasoo ku hadal waxa aan kugula talinayaa inaad qof aad faamili tihiin ama saaxiib ama qof aad si uun isugu agdhowdihiin oo isaguna kugula sheekaysta. markaas aad baranayso af kugu cusub waxaad tahay sidii ilmo yar oo hadaaqaya oo mar erayada waad ilaawaysa mar si khaldan ayaad ugu dhawaaqaysaa. sidaas daraaddeed waa inuu noqdaa qofka aad kula baragtaas garaynayso qof aanad ka khajilayn. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeennan. haddii aad muuqaalka wuxuun ka faa'iiday like saar siina sheer garee. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeena.